الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله الله baa mahad iskale subxaanahu watacaala barnaamijkeenii saddexaad oo aynu masaa'ilka uga jawaabeynay ayaynu caawa qabanaynaa waxaad kala soconaysaa insha allahu tacaala s b n somali t v south africa gaar ahaan xafiiska uu ku leeyahay kipton walaalayaal waxaynu ka hadlaynaa qeybtan zakada axkaamteeda qeyb ka mid ah. zakadu saa ogtihiin waa ruknu min arkaan اlislaam. rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaah wa sawmi ramadaana wa xaji اlbeyti mutafaqu calayhi. xadiidkaas imaamu bukhaari muslim ay wariyeen. nabigu wuxuu ku sheegay zakadu in rukni kamid tahay arkaanu islaamka ka mid ah. rukni sideeda waxaa la yidhaahdaa waxa la sameynayo wuxuu ka kooban yahay. mithal ahaan salaada markaynu tukanayno arkaanteedu dee waa waxa salaad la yidhaahba in la niyoodo, takbiir lala yimaado, faatixadii la akhriyo, la rukuuco, la sujuudo. salaada waa arkaan. wakadalika xajka markaynu xajiyeyno arkaan waxaa la yidhahdaa waxa la sameynayo waa in xajkii la niyoodo, maxaanku carafa la tago, kacbadii la dawaafo, saci lala yimaado, timihii la xiriyo calaa asixi lqowleyn. nikaaxii guur waxbaa la guursaday marka lagu leeyahay waaba arkaantaas. arkaanta nikaax maxaa la yidhahdaa dee waa zawjeynkii, zawjkii zawjadii, shaahideynkii iyo siiqadii. beec oo kale beec waxaa la yidhaahdaa caaqideynka baac iyo mushtar, macquudu caleyhi waa thamanka iyo muthamanka iyo maxaan ku dhaha siiqadii. haddaba haddii arkaan islaamkii zakadii laga dhigay ay ka mid tahay dee islaamba waa shantaasi wixii soo raaco weeye. haddaad ka tagto islaamki waa dumisay, waa baabi'isay. sida haddaad salaada arkaantii ka tagto aad salaaddii u dumisay oo baabi'isay. zakada waxaa la farad yeelay sida la ogyahay sanadkii labaad ee hijrada oo axkaam badan iyo waajibaadka iyo tashriicaadka aada loo farad yeelay. dagaalo waaweyn iyo umuro waaweyn ay dhaceen. ileen wixii inta maka la joogay waxaa laga hadlayay caqaa'idka islaamka laga hadlayey. laakiin markii loo soo wareegay madiina ayaa tashriicaadka iyo islaamka qaacidooyinkiisa la dejinayey. zakada walaalayaal waxaa lagu yidhaahdaa luuqada si aad garan doontaan annimaau waziyaadatu walbarakatu walmadxu walislaaxu wa safatu shay. waa cajiib. macnaha waa ziyaado, waa barako, waa ammaan, waa islaax, waa dahaaro. wax shay cajiiba weeye. laakiin fuqahadu markay ka hadlayaan isdilaaxooda ama xeerka ay leeyihiin, shaaficiyada kale haddaynu soo qaadano waxay yidhahdaan zakada ismun sariixun lishayin makhsuusin min maalin makhsuusin calaa awsaafin makhsuusin lidaa'ifatin makhsuusatin. waa ismi makhsuusa shayga la bixinayo ee miskiinka la siinayo, maal khaasa u sugnaaday. ilan zakada maal oo lagama bixiyo, maal gaara laga bixiyaa, nisaab gaaray iyo qadarkaas waa kaas. qolo gaar oo makhsuusa lagu leeyahay. dadka zakada laga bixinaya waa dad gaar ah. haddana waxaa weye daa'ifo gaara la siinayo. sideedii sinfiyo ilahay qur-aan ku sheegay inama sadaqaatu walfuqaraa haruma jira. zakada xikmadda loo farad yeelay ilaahay baa si qur-aanka ku sheegay qeybo kamid a lama garanayo. culimadu waxay dhn waxaa weeyaan altakafulu waltaraaxumu waltacaadufu waltacaawun bayna almuslimiin. in la iskafaalo qaado oo muslimiinta wax haystaay kuwa baahan ay kafaalo qaadaan, inay isu naxariistaan, inay isu dhimriyaan, muslimiinta in iskaalmaysato. markaas waxaa dhacaya amni iyo istiqraar. xoolihii waa la wada ilaalin. arrin muhiima weeye. zakadu dee sidaa ogtihiin waa dee shay waajiba weeye. qofkii inkira oo diida oo zaka iguma waajibi yidhaahda dee isagu waaba gaal. gaalnimaana loo dilayaa. tooba keen baa laleeyahay. hadduu tooba keeni waayo waa la dilayaa. gaalnimaana loo dilayaa. taa waa arrin iska waadixa weeye. sheekha la yidhaahdo ibraahim ibn ibraahim allaqani almakiy albasriyi wuxuu yidhi waman limacluumin daruuratan jaxad
min diinina yuqtalu kufran laysa xad wa mithlu hada man nafaa limujmacin aw istibaaxa kazina faltastamic wuxuu yihi qofkii jaxdiye oo diida shay diinta islaamka loo yaqaano daruura ahaan oo laska wada garanayo dee waa la dilaya gaalnimaana loo dilayaa wakadalika waxaa la mid ah shay inuu banaan yahay oo waajib yahay lagu ijmaacay qofkii inkira isna waa la dilayaa gaalnimaa loo dilayaa wakadalika shay inuu xaaraan yahay lagu ijmaacay qofkii baneeya sida zinada oo kale iyo khamrada iyo banaanta yidhaahda isna waa la dilayaa waan rabaa insha allahu tacaala qaybo dambaan ka dhigan doonaa hal masale inaan ka jawaabo oo fiqi ah oo nala soo weydiiyey masaladaas waxaa weeye zakada marka la bixinayo afar nooc baa zakada laga bixiyaa waxa weeye lacagihii wixii lacag ahaa israaci kulligood waa kow dahab iyo fidlay ahaayeen iyo wixii kale oo de hadda yimid iyo waxaa loo yaqaano curuud tijaarada badeecada iyo ganacsiga waa laba wakadalika xoolihii aynu dhaqan jirnay alibilu walbaqaru walghanam waa intaas saddex qaybood iyo wix dhulka soo baxay oo isna laba qaybood aho ama zuruucdii ama himaartii ah afartaa qaybood hadii labas sideed bay noqonayaan zake laga bixiyaa laba qaybood baan rabnaa qaabka wax looga bixinayo mathalan lacagta markaa ka zakeynayso waxaa la rabaa inay nisaab dhan tahay sida xoolaha kulligood ba nisaab ay u dhan yihiin hadda geela oo kale 5 neef waa inuu gaaro lodii waa in 40 waxaa leeyahay 30 gaarto ari maxaan ku rahaa waa in 40 gaaro marka lacagta laga zakeyn jiray oo zakada laga bixin jiray dahab iyo fidda lagu qiimeyn jiray 85 gram oo dahaba ama maxaan ku yiraahdaa 200 dirham inaga hadda lacagteenan aynu haysano waxaa loo fiirin lacagahaas lacagta dhan hadday haysato hadday dhan tahay 85 gram oo dahaba zaka lagu leeyahay waxaa ka bixinaysaa 40 meelood meel baad bixin lacagtaas lacagtaada intaa qaybiso 40 meelood meel bixi inta kalena adigu maxaan ku idhaahdaa lahar 39 kale adigu lahar ama intaad 10 meelood u qaybiso 10 kaa meelood haddana meesha tobnaad 4 meelood usii qayb rubcul cushri fuqadaa buu cabiraa arrintaas mathalan kunkii 25 baa ka baxaysa ama 25 ama dollar ha ku ahaato ama rana ku ahaato ama kuwaaja ha ahaato ama soomaali ha ahaato curuudu tijaara badeecada maxaa looga zakeyn marka dukaanka aad soo camirtay sanadka mithalaan bishii koobaad lacagtaa ku camirtay hadday awalba zake dhamayd oo lacag badan ay ahayd dee lacagta marka soo gashay marka 12 bilood dhimaataa ka zakeynaysaa laakiin haddayna lacagtu ayna dhamayn zako dukaanka bishaad soo camirtay bisheeda kale 12 bilood markaad gaarto baad qiimeyn waa xisaabi masalada u danlaya masaladan weeye oo dadka in badan ka wareersan dukaanka mithaal ahaan jaakada aa gadayso waxaa ka soo bixisay adigu $10 adna hadda waxaa ku gadaysaa mataqaana $11 $11 baa ku qiimeyn masaladaas aad bay dadku u wareersan tahay qofka baayic baa hadda adi lagu yihahdaa dukanka markaas baayic baa lagu yihahdaa qofka baayica wuxuu gadayaa lagu qiimeyn markii hore mushtar hayaa usoo gadanaysa waxaa ku soo gadatay ma lagu qiimeynayo masalada 40 meelood isku waafaqsan yihiin masala khilaaf ka jira ma aha waa masala dadku ku wareereen oo si qaab daran uga zakeeyaan adiga dukaanka waxaa gadaysa haddaad jumlo gadayso jumlada hadday ku qiimee haddaad tafaariiq gadayso tafaariiq ku qiimee weliba sida magaalada qaalibkii lagu qiimeeyo badeecadu badan tahay ayaa ku qiimeyn hal kitaab haddaynu soo qaadno cibaaradiisa madaahibka o dhan way qabaan masaladaas kitaabka waxa la alfiq lislami wa adilatuhu sheekha loo yaqaano doctoorka wabat zuhayli raxmat ullahi caleyhi uu dhintay 2 sana ka hor meelahaas buu dhintay wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay masaladaas xukmu dami الribxi wالnimaa wa maali gayri tijaarati waxa ziyaadado ka yimaada tijaarada iyo ribixa oo dumitaanka loo dumay ilaa asli lmaali badeecadii hore loo dumayo oo lagu qiimeynayo masaladaasaan ka hadlaynaa sheekhu yihi si kooban markaasaa wuxu itafaqa alfuqahaau fuqahadu waxay isku waafaqeen kulligoodba weliba itafaqa fuqahaau lmadaahibi 4 calى anahu tudamu arbaaxu tijaarati ilaa asli ra'si lmaal maalka asalkiisii badeecadii ribixi in lagula qiimeyn badeecada maaragtay qiimaha kusoo gaday
hadda markay dukaanka kuu taallo waxaa kuugu sugan ribix iyo faa'iida kugu jirta, taa waa ku qiimeynaysaa. masaladaasi masale aad iyo aad muhiim ah weeye. hadduu ribxii soo baxay lacagtii caddaatay iyado baab kale weeye. daartan ku qiime, haddaarta lacagtu markay caddaatay waktigeeda gaar uga bilow, waxaana kuu fiican inaad isku wada qiimeyso si hal meel aad uga zekayso hal wakti. calaa kulli masalada waxaynu leenahay badeecada aad gadayso, dukaanka waxa hadda kuugu taalo ee ku gadaysa aad ku qiimeyn, ee waxaa ka soo bixisa ku qiimeyn maysid. afarta meel baan isku waafaqsan arrintaas. arrintaa laiska jiro ilahina looga baqo subxaana wa tacaala. kiliibka insha allah intaas kasoo gabagabayneynaa. wasalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.